Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qayb galay munaasabad ay xilka kula wareegayeen wasiirada cusub ee wasaaradaha arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta iyo amniga gudaha. Wasiirka hore arrimaha gudaha Mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa xilka ku wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradda Sharaal Mukhtaar Xasan Afrax, halka wasiirka hore ee amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaali uu ku wareejiyay Xasan Xundume Jimcaale wasiirka cusub ee wasaaradda amniga. mudane ra'iisul wasaare intaan joogay wasaaradda amniga wax badan noo qabsoomay ay ka mid tahay tayanta hay'adaha amniga qaybahooda kala duwan sidoo kale wasaaradda amniga intaan joogay ciidamo badan soo kordhinay haddii ahaan lahayd ciidamada haram cad iyo ciidamada daraawiishta marka hore jirjirla hadda la sii tayay sidoo kale waxaan aad ugu faani karaa ka wasiir ahaan intaa wasaaradda joogay in ciidamadii niisa ay ahaayeen ciidamo muuqdo nabad sugid waxaa loogu talagalay inay qarsoodaan waaga horena baabuurta iyo fulaanada ama tuutooyin niis ay ku buufsan wadan jireen. hadda waa lama hadiis in niis aan ka tirnay meeshii godka jilcowna aan u bedel akademiyada jilcow. sidoo kale waxay wasaaradda amni intaan joogay hadda aan sameynaa hay'adda socdaalka jinsiyadaha inaanu dhisayno xarun weyn oo lacag 5 milyan iyo ka badan ku baxayso. dhismihii waa gabaabsi sanadka cusub la furi doono haddii Ilaahay yiraahdo. waqtiga hadda aan ku jirno oo ah waqti kala guur iyo doorasho miisaanku yahay, hawsha wasaaradana ugu culus dalka howlaha la hayo. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa ku amaanay wasiiradii hore ee xilka wareejiyay howlkarnimadii ay muujiyeen muddadii ay xafiiska joogeen, isagoo tilmaamay in labadan wasaarood ay ka mid yihiin lafdhabarta dowladnimada. hawl fiican ay soo qabteen xaqiiqdii haddii ahaan lahayd dhinaca federaalka oo hadda gobollo maanta lugahooda ku taagan ayuu soo dhisay wasiirka iyo tiimkiisa, wasiir ku-xigeenkii, wasiiru dowlihiisii iyo waxyihiisii. shaqo aan la inkiri karin, shaqo wanaagsan oo la taaban karo maanta ay ugu dambeeyaan maxaa la dhahaa galmudug iyo south west koonfur galbeed oo maanta leh maamul iyo nidaam ayay soo dhiseen. gudaha dalkan hadda markhaatiyaan ka nahay federalismka iyo maxaa la dhahaa dukumentiyada ay sameeyeen waa wada ogsoonahay. waa uga mahad celinayaa adiga iyo tiimkaaga shaqada aad u wanaagsan oo aad soo qabateen. waa nin dadaal badan oo karti badan, horta waa ku ammaanayaa taas. tan labaad oo ah wasaaraddan wax badan ayuu ka soo qabtay oo indhaha laga qabsan karin. runtii ay ka mid tahay maxaa la dhahaa amniga magaalada oo aad ugu dhabar adeegay, laisku dayay in la fashiliyo. isaga iyo tiimkiisa hogaaminaya wasaaradda amniga dhabar adeeg badan ayay soo sameeyeen oo ah siday magaaladan u badbaadin lahaayeen. cadowgana waad ogtihiin oo isku dayayaa qof maanta dhan raba inuu ku fashiliyo, adigana aadan maxaa la dhahaa dareenkaaga aadan joogto u ahayn. waa garan kartaan dhibkooda u geysanaya ummadda. marka har iyo habeen way u soo jeedeen isaga iyo tiimkiisa, especially saraakiisha booliiska, nabad sugidda. wasiirada cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta iyo amniga gudaha ayaa xusay intii karaankooda in dalkooda ay u adeegi doonaan si hufan oo daacadnimo ku jirto. halayla shaqeeyo, dalka aan wada shaqeyno. xilka in mas'uuliyad culus oo ammaano waaye, ilaahay nagu ceeb astiro. waxaan rajaynaynaa meesha wasiir Sabriye soo gaarsiiyey haddaan wax ku dari wayn inaan hoos uga dhicin. marka aan wada shaqeyno. haddaan u gudbo amnigu mas-uuliyad wadareed waaye. mas-uuliyad wadareed marka la leeyahay madaxda ka bilow wasaaradda sii marsi iyo saraakiisha ciidamada iyo dhammaan gedi shacabku ku dhamaadaa. shacabkuna waxa waaye waa saldhigga amniga ummadda. haddii aan shacabku ausan fahamsanayn amnigu macnaha uu leeyahay, haddii aan shacabku usoo taagnayn amniga oo aysan ogeyn inuu yahay dantooda shacabku, ciidamada nabadgelyadu kaligood wax ma qaban karaan. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kula dardaarmay wasiirada xilka la wareegay in dalkooda ay ugu shaqeeyaan si daacadnimo ah, maadaama wasaaradaha ay la wareegeen ay muhiim u yihiin dowladnimada, gaar ahaan amniga iyo federaaleynta. wasaaraddan waa wasaaraddii halbowlaha ku soo dhawow. wasaaraddan waa wasaarad shaqo adag wado xaqiiqdii. soomaalidana waxay tiraahdaa gacan la barkanaya alla og. markasta ku dadaal waxaa maanta qabanaysin. marka waxyaha tiimka gadaal fadhiya waxaan idin sheegayaa inaad shaqada si fiican u qabataan. lama oga berri meesha ku dambeyn doontaan. runtii xaqiiqdii soo wasiir Ducaali iyo sheegay wasiir Xundubey
shacabka haddaysan idin taageersaneen waxba lama qaban karo. magaaladan cidda lagu dagaalamayo la isku haysto waa saboortiga shacabka. cidda ay shacabka taageerto ayaa magaalada iskale garoonka ya taageerayaasha cidday raacaan ayaa banooniga ku guulaysato. isku daya shacabkiina u dhawaataan siiba saraakiisha waxaan ula jeedaa ha isku dayaan inay shacabka aad ugu dhawaadaan. maxaa la dhahaa shacabkana ay aad kasbataan. wasaaraddan muhiimad gaar ah ayay aniga ii lahayd oo laba arrimood ugu muhiimsanaa anigoo wasaaraddan ay muhiim ii tahay hadday ahaan lahayd amniga guud iyo amniga doorashooyinka. sidaasaan imid iyo saaxiibkayna maanta arko. wasiir xundubey waan ku garanayaa waa xataa nin wariye culus meesha hadal maanta looma baahna xoogaa loo baahan yahay